bismillaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mudanayaal iyo marwooyin dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkii afraad ee silsilada cambaabur podcast oo idinka timaada Affiliates Foundation. meel kastoo naga daawanaysaan iyo joog kastoo meel kastoo naga dhageysanaysaan daawashada waan gaari doonaa waxay raanta la dooneen meel kastoo naga dhageysanaysaan iyo joog kastoo nagu dhageysanaysaan baa Cabdullaahi Raage oo idin leh mar kale iyo isku soo noqod wanaagsan waqtiga aad dhagihiina naamaahin doontaan in barnaamijkan ku falanqeyn doono mowduuca caawa ama maanta ay noo guntan qof walba xilliga uu joogaba ayuu tirsadaa anagu habeen baan joognaa magaalada Muqdisho oo bisha Abriil ay tahay 9 bisha Abriil ay tahay 9 qof walba xilliga uu dhageysanayo iyo saacada uu la socdo ayaa ku salaamayna waxaan ku soo dhaweynaynaa barnaamijkan oo aan kaga hadli doono xadaasada kadib ama modernity and postmodernity carayna lagu yiraahdo alxadaasa oo ma bacda alxadaasa oo aan ku falanqeyn doono fahamkaasi waxa uu xambaarsan yahay iyo maxaan ku raahdaa waxa ku fadhiyo iyo fikradaasi maxaan ku raahdaa tafaasiisheeda ama faahfaahinteeda iyo sida ku curabtay iyo xaaladaasi oo dhan inta aan u galin barnaamijkaasi ballaaran waxaan jecelahay inaan caawa iskiin baro Cumar Cali Baashe oo barnaamijka caawinula falanqeyn doono mowduucani ku soo dhawaad Cumar Cambaabur podcast iyo dhageystayaasha Cambaabur podcast. aad u mahadsan tahay Cabdullaahi Raage sayidka Cambaabur podcastina waa ku faraxsanahayna maaragtaan mowduucan hadda aan caawa aan u fadhino 29 Abriil ee magaalada Muqdisho inaan mowduucan aan maaragtay si fiican la fagurno oo aan filayo in maaragtay ay ka faa'iideystaan doonaan dhageystayaasha meelba ay joogaan mowduucu waa culus yahay laakiin waxaan isku dayaynaa sida ugu maaragtay habboon aan u dhigno oo u noqdo mid aad u fudud oo maaragtay ay ka baxsan tahay maaragtay luqadda oo aad ku adag oo maaragtay lagu yaqaan mowduucan dadka daraasay luqadda akademiga iyo luqadda mustaqafiinta alafsan luqadda khashabiga afka looxa la isticmaalay si fiican wardan intaanaan u gelin mowduuca Cumar Cali waxa uu daraasay dhaqaalaha iyo horumarinta dhaqaalaha ama economic development waxa wax ku bartay dalka Soomaaliya dalka Djibouti dalka Suudaan sidoo kale waxa uu u tanjeeraa ama waqti badan geliya daraasay waxna ka qoraa cilmiga bulshada si guud si gaar ahaaneed arrimahan la xiriira thaqaafada iyo fikirka iyo dhaqaalaha iyo siyaasadda guud maxaa ku dhaca mujtamaca Cumar waxaan rabaa inaan weydiiyo intaan u gelin mowduuca Cumar oo dhaqaalaha darsi iyo xadaasada halkiis ka soo galeen niyahow arday walba maaragtay oo cilmiga dhaqaalaha dhigtay intuu ku guda jiro waxaan isleeyahay waa cilmiga ugu badan oo maaragtay oo qofkan ereyada yani consumption iyo ereyga maaragtay production oo inta ugu badan ereyadaas ay kusoo noqonayaan marka labadaas eraya aad waxay u yihiin laba erayo oo qofka ardayga ah oo maaragtay cilmiga dhaqaalaha dhiganayo dhex dhigi karo waqti loo yaqaano waqtiga oo maaragtay xadaasada labadaas eraya marka waxay sameysay bulshadii xadaasiga ah marka ka Soomaali ahaan xaqiiqatan waxaan noolnahay xaalad oo xadaasad dhameystirnayn oo aan la dhihi karo waa bulsho isticmaalayso nataa'ijtii ka soo baxday xadaasada laakiin aanan ahayn mujtamac xadiis ah oo ama bulsho xadiis aan ahayn waa si gudaha u sii gali doonaa laga wada bulsho xadiis ah marka anaga xaalad waxaan noolnahay isku keentay waxyaabihii traditionalka ahay oo sooyaalka ahay hore iyo waxyaabihii maaragtay cusbaayo oo xadaasada ay la timaado hadday noqonayso dhaqaale hadday noqonayso maaragtay teknolojiyad marka waa xaalad aan si oo maaragtay aan foorarta aan u isticmaalno oo ugu dhex jirno marka waxaa habboon bal inaan dib intaan u istaagno bal aan eegno waxay tahay xadaasada waxay tahay qaabkay u samaysantay dhaqaalaha siyaasadda aragtida maaragtay ideolojiyadda iyo waxyaabaha ku hareereysan si aan bal anagana aan bulshada Soomaaliyeed ay u noqon lahayd bulsho ayadana bal wax ku darsan karto doodaha oo
oo adduunka hadda ka socday axdaasada ku saabsan war wacan wey si kale haddaan u dhigno waxaan odhan karnaa waxaan nahay bulsho loo soo qafaalay xadaasada mugta ama kala beerka xadaasada iyo sooyaalka nool saan u fahmay exactly xaqiiq ahaan waxaad moodaa soomaalida in lagu sameeyo waxaan ereygan biologiga loo isticmaalo mutation wax aan dhamaystirmin inuu maaragtay si un u hormaro marka anagoonan bulshadii oo si dabiici aan u korin oo ayaa waxaa lagu dhacday marka in afka laga geliyo ama lasoo isticmaashaba lasoo qafaalo la dhaho waxaad tihiin bulsho oo qarnigii 21aad ama qarnigii 20aad nool oo ay tahayna inaa u noolaatiin si u nool yihiin dadka kale qarniga 21aad dhaqaalaha hadday tahay siyaasad iyo arrimo bulsho iyo sida mujtamacu u dhisan yahay baadeeta ereyga qafaalada waxaa ku xasuustay erey xabashi waxaa jira aad deegaankayga caan uga moogta aad masalada matalo waxaa dhaa gidaash marka qofka si xooga loogu tasarrufo mataqaanaa waa la hebel waa la gidaashi ciidanka ku imanaya waxa laga odhanaya gaarigaaga dowladdu u baahan tahay soo kaxay shidaalkana kusoo shubo ina mari caskartood xaabo usoo guraysaan waa siyaasad juubjuub iyo maaragtay awood sheegasho maaragtay hogaaminayso yani inaad ka shaqayso waxaanad amaad ku noolaato amaad wado waxaanad adigu rabitaankeeda ama si dabiici ah aanad kusoo gaadhay mafaahiimta aan isku qaadqaadnay maxaan kula xadaasada iyo maxaan kula soomaalida nolosha hadda ay nooshahay iyo joogkaasi ama gidhaashkaas waxaasoo dhan waxa gunta u fadhiyan caawa ka sheekeynayna waa xadaasada marka mafhuum ahaan فهم concept كفهم أهان سي قف وافك وحكوا آخر يسوع وفهم concept أما مفهوم أما فهم سومالي سيا نسكولا كان قادنا دقيستياشي لبدي نوجا عن نسكو داينا هنا تعريفنا أما قيحنا حداثة حداثة محاتحي ما البحر ما مريد مجال ما مع عصري نما يعصريه مريد مجاله با urbanization با ما هرمر أما teknolojiyadeed baa yani suuradda jabaan oo kaleba xadaasi maxaa tahay ninho waxaa jiro ereyo oo u baahan in la kala saaro ereyga koowaad waa ereyga magaalowga ama englishka lagu dhaho urbanization carabiga noqonaya taxadur yani iyo erey kale waxaa jiro civilization oo ilbaxnimo ama xadaarad yani ereyga saddexaadna waa waxaa waaye taxdiis yani ama modernization iyo erey afraad isagana waxaa jira alxadaasa marka afartaas erey ayaa inta badan isdhex gala oo macnayaashooda si maaragtay loo ilduufo haddaan ka bilaabno magaalowga ama waxaan la dhaho urbanization waa waxa weeye dhaqdhaqaaq ay bulshada samaynayso ama qayb ka mida bulsho ay samaynayso iyadoo ay kasoo gudbayso waxa loo yaqaano rural ama reef ama baadiyaha oo ay noqonayso bulsho degan magaalo iyadoo ay muhiim aysan ahayn isbedelka aragti ama isbedelka ma aragtay oo ideolojiyadeed marka iyada waa waxa weeye waa dhaqaaq xaalad laga gudbayo oo xaalad kale makaanka gudbayo ama qaabka loo noolyahay marka iyada waxaa muhiim ah urbanka waxaa muhiim ah marka magaalowga waxaa muhiim ah in wax iska bedelaan qaab soo saarka dhaqaalaha haddii ay ahaan jirtay in maaragta xoolo dhaqato aad ahayd waa ina maaragta aad u noqdo magaalada markaad timaadid waa ina baayac mushtar kale noqdo ama oo maaragtay xirfad noqotid qof wax soo saaro oo gacanta ku shaqeeya aad noqotid taas waa shardi muhiim u ah magaalowga waxaa kaloo shardiga magaalowga ka mid ah waxaa ingiriiska ku dhaho neighborhood yani inaad soo dhexgashid xaafad oo dad badan degan yihiin aad marka jaar ama deris badan aad yeelatid marka deriskaasoo oo maaragtay guryahooda iyo danahooda iyo maaragtay iyo caafimaadkooda iyo nadaafadda isku xiran tahay arrinta kaloo iyadana muhiimka oo saddexaada waxay tahay
magaalowga ama magaalada way ka dad badan tahay baadiyaha saa daraadeed marka waxaa jiraya marka xiriiryo ka baxsan xiriiryadii hore ee baadiyaha la isticmaalayay oo marka magaalo markaad timaadid nasabka iyo qaraabada muhiim ma ahan waxaa muhiim ah waxyaabo kalaa soo biiraya sida shaqo wadaag inaad tihiin qofkan ama inaad tihiin qofkan qof dana wadaag aad noqonaysid ama ina ka dhexeynayso waxyaabo gaar ah ama siyaasad ha noqoto ama deris ha noqoto oo marka danta iyo shaqadaba ayaa waxay abuurayaan xiriiryo cusub taas waa magaalowga civilizationku ama ilbaxnimadu waa markii ay ummad awood iyo siyaasad iyo dhismaba ay ka samayso isbedel مثلا awoodeeda ciidan iyo awoodeeda ma aragtay wax soo saar ee technology-ga oo noqdo mid xoog badan oo adduunka ka dhex muuqda saadaraadii marka waxaa maqlaysaan waxaa la dhaho Islamic civilization ama xadaaradii muslimiinta ama Roman ama China ama ma aragtay marka civilization wuxuu ku dhisan yahay waa ciidan waa technologiyad oo noqotay inay hogaamin noqoto ama hogaamisay xili ka mid ah xiliyada adduunka ay hogaamisay taa waa civilization waa ilbaxnimada ereyga kale isagana muhiimka waxay tahay waa taxdiidka ama horumarinta yani inkastoo kelimada xataa horumarinta ay macno kale leedahay Englishka oo developmentiga ay tahay laakiin ereygan taxdiis ama waxaan ma aragtay waa wax socdo taxdiisku waa siyaasaadka ay isticmaasho xadaasada bulshada markii laga dhigayo bulsho xadiis ah waxaa la isticmaalaya waxa loo siyaasaad taxdiis ama waxa la dhaho ma aragtay xadaasaynta bulshada xadaasaynta bulshada waxaa kow ka ah in ma aragtay qaab wax soo saarka uu noqdo qaab ku dhisan ma aragtay industry ama warshad qaab warshad inuu ku dhisan yahay saadaad marka dhaqaalaha waa la warshadeynaya warshadeynta waxay noqonaysaa asalka dhaqaalaha talabaad oo ayadana taxdiidka muhiimka waxay tahay waxa la dhaho individualism ama qofnimada keliga ama kelinimada qofka muhiim ma ahan group ku dhex jiro muhiim waxa ah isaga laftirkiisa marka waxaa la sameynaya waxa la dhaho khusuusiyo qofkan waxyaabaha u gaar ah waxaa la sameynaya siyaasad ma aragtay ilaalinaysa qofkan khusuusiyadiisa iyo taslixaada muhiimka taxdiidka waxay tahay markaan ka soo hadlaynay magaalowga waxaan sheegnay xiriirka taxdiidka wuxuu ku dhisayaa xiriir qofnimo ah qofka ka bilaabanaysa wax ka galay ma lahan gruubyada iyo maaragtay hadday noqoto mid reer iyo mid diin si hadda u fiirinana waa siyaasadana waa qaab in la sameeyo secular yani bulshada laga dhigo ama siyaasadda laga dhigo waxaan dhaho calmaaniyad oo ah in ay diinta iyo dowladda marka lagu fasiro luqadda basiidka marka lagu fasiro intaas way ka adag tahay laakiin markii luqadda basiidka lagu fasiro secularka ama calmaaniyaddu waa diinta iyo maaragtay iyo dowladda oo maaragtay la kala saaray bulshadaas marka waxay leedahay mu'asasad oo dowlad ah iyo mu'asasad waxay leedahay oo diineed xiriiryada bulshadana hadda ku noqdo mid ma ahan qaraabo iyo nasab ku dhisan waa mid ku dhisan waxa la dhaho contract ama ma aragtay wax la wadaagayo ma aragtay si kala hadda u dhigno heshiis bulsho oo ma aragtay shaqaalaha ma aragtay ama waxaan la dhaho naqaabaadka la dhaho ururada shaqaalaha iyo iskaashatooyinka axsaabta yani xiriirada marka halkaas waxay noqonayaan xiriir mid fidsan ma ahan mid oo ma aragtay oo taagan oo nasab iyo aabanimada iyo diinta iyo ay noqonayso laakiin waa mid ballaaran oo qofkan uu isaga dooran karo meeluhu ka tirsanaan karo iyo in bulshadana ay tahay bulsho qowmi ah ku dhisan maaragtay national ku dhisan taxdiidka marka waa qaabkaas ama xadaasadu ayadu waa more ama aad ay wax u samaysan tahay markaan fiirino qaabka u samaysan tahay waa madhab ama waxaa la dhihi karaa waa aragtiyo si fiican waa aragtiyo xoojinayo maaragtay cuseybka ma aragtay casriga
oo xiriirkan u jarayo wax walbo maaragtay oo casriga ahayn maaragtay soo yaal oo hore marka ayadoo saddex arrimooda muhiim ah oo waxay tahay arrinta koowaad waa kala duwanaanta iyo maaragtay iyo bulshada inay tahay bulsho isku xirxiran laakiin kala duwan masaalixdoodna ay kala duwan yihiin bulsho isku xidhan furfuranna wayna isku xidhanta wayna furfuran tahay arrinta labaadna waxay tahay in waxyaabaha nature-ka ah oo yani qaabkay ku dhisan tahay saddex qaabay ku dhisan tahay qaybta labaad waxay tahay in phenomenomka ama shacsanaha jira ee maaragtay dabiiciga ah in la isticmaalo wax si u khidmaynaya bulshada iyadoo la isticmaalayo cilmiga iyo manhajka oo tajriibiga la dhaho manhajka dabeecadana in dadka waa nature wixii ku jira dabeecadda wixii ku jira in dadka loo adeejiyo iyadoo cilmiga sayniska la isticmaalayo dabcan iyo qofka isagana inuu helo mahaaraad ama maaragtay xirfado oo teknolojiyadda ama maaragtay warshada ah suu wax u soo saaro marka waxyaaba muhiimka oo saddex shay waa kala duwanaanta waa teknolojiyadda iyo waxay tahay maaragtay waxaan la ingiriiska ugu dhaho consumption saddexdaas ayaa marka asaas u ah consumption oo iibsiga noqonaya ama macmiilashada noqonaya marka si kale haddaan u eegno waxay noqonaysaa maxaan ku idhaahdaa qaabka dhaqaale qofku wax u nool yahay ama xula soo baxayo iyo qaabka maxaan ku cilaaqaadka xidhiidhada dadku u dhisan yihiin in isbeddel ku dhaco oo saad soo sharaxday ay maxaan ku idhahdaa u dhismaan haddaan dib ugu yaro noqono maxaan ku idhahdaa xadaasada ama modernity-ga dhalashadeedii sidee ku curatay markaa very nice xadaasadu niyahow waxay ku dhalatay qaab la dhihi karo oo saddex arrin ama afar qaybood u fiirno qaybta koowaad xadaasadu falsafad ahaan say u dhalatay xadaasadu siyaasad ahaan say u dhalatay iyo waxaan la dhaho sociology ahaan say u dhalatay iyo cilmiga iyo teknolojiyada qaabka u samaysantay waa afar waa falsafada waa siyaasadda waa bulshada waa sayniska iyo teknolojiyada haddii aan falsafada aan ka bilaabno sida hadda loo taariikheeyo xadaasada iyo falsafada guud ahaan waxaa laga bilaabaa westernka waa u imaan doonaa dooda ah inay jirto taariikheyn ka duwan taariikheyntan hadda oo reer galbeedka un ka bilaabayso taariikhda laakiin hadda waxaan samayn doonaa sida oo maaragtay waxaan la dhaho maaragtay manhajka madrasiga ah dugsiga haya qoran si aan hore ugu socono ama degdeg ugu marno mawduuca marka kaniisadda ayaa waxay ahayd goobta keliya ay soo saarto maaragtay aragtiyaha ayadaana kitaabkii muqadaska gacanta ku hayso marka aragti falsafi ahoo ayada khilaafsan mala soo saari karo ayadana waxay ictimaadaysay falsafad markii la fiiriyo falsafadii arusto idealismka ahayd ama maana ku dhisneed in ogaalka keliya uu muhiim uu yahay oosan waxaan la dhaho tajrubada aysan muhiim ahayn saa daraaddeed marka laba arrin muhiim ah marka dhex galo ogaalka iyo jiribka si loo kala fahmo si yaro fudud ma u fasiri karnaa ogaalku waa in qofkan wax ku ogaado waxaan la dhaho ta'amulka u fiirsiga ama wax u fiirsado marka maskaxdiisa waa camaliyad maskaxda keliya ka dhacayso qofkan waxaan wuu ogaaday macnaha wuxuu ku ogaaday kadib markuu maray uu maskaxdiisa ku raadiyey uu ta'amulay uu fiiriyey uu eegay uu maaragtay uu baaray waxaan weliba adabkii iyo maaragtay inkii oo suugaantii markii la isticmaalayo iyo falsafada tijaabada marka tijaabadu laba arrinay martaa laba qaabay martaa qaab waa xisbiga waxaan la dhaho
taabashada ama in la taabto ama in la arko ama in la dhadhamin karo ama in la maqli karo dareemayaasha oo maaragtay lixda inay marto iyo mise waa shan waaye iyo wax badan baa lix laga dhigay marka waa dareemayaasha shanta inay marto iyo in la geliyo waxa la dhaho laab shaybaar in la geliyo oo qaabkaas maaragtay ama shaybaar ha noqoto ama ha noqoto isticmaal aalad ka baxsan shanta oo shanta dareema ka baxsan ka laba falsafada ku dhisan idealka iyo falsafada waxa empiricism tan markaa farsamada ku dhisan ma yahayn kaniisadu waxay ku tiirsanayd falsafadii Aristo ee ku dhisnayd maxaan ku dhahdaa ogaalka iyo ayadaba erey kale waxaa jiro oo la dhaho metaphysics meta iyo physics waaye meta waxaa la isticmaalaa wax ka duwan yani kadib ama poste u taagan tahay kalmada ingiriiska metaphysics physicsna waa wax muuqdo oo la yaqaano oo la arki karo physics jiritaanka physicalka marka metaphysics waa wax ka baxsan waxyaabaha la yaqaano la arko saa daraaddeed marka kiniisada eeda muhiimadeedu waxay ahayd waxyaabahan aan la dareemi karin sida waxyiga ilaahnimada nebinimada sharciyada kiniisadaba halkaas ku taagneed qeybka waxaana dhaho qeybka ay ka mid tahay nebi ciise inuusan maaragtay ilaah yahay ama wiilkii ilaahay inuu yahay isagana baabaha maaragtay uu sharciyadiisa si toose uu ilaahay u helay waxaas wax la empirical galayn kara maahan wax tajrubo geli kara maahan saa daraaddeed marka kiniisaddu waa inay ku doodo in la isticmaalo manhaj caqli ah oo lagu proof garayn karo ama lagu xoojin karo jiritaanka xujooyinka kiniisadda si fiican taas waa mid saa daraaddeed marka laba dhacdo muhiima dhacday oo wax weyn ka bedeli doonto falsafada iyo aragtiyaha guud dhacdada koowaad waa markii maaragtay lasoo saaray waxaa la dhaho madbacadda si fiican oo ninkii Johann Gutenberg oo ikhtiraacay madbacadda markuu ikhtiraacay maxaa dhacay madbacadda markii la helay laba arrin oo muhiim ah ayaa Yurub ka dhacay koowaad xitaa in nuskhooyin badan oo kitaabka muqadaskeena taabacay taasna ay suuragal noqotay inuu qof walba uu kitaabka gacanta ku dhigay faafo qof walba akhrisan karo halkaas waxaa ka baxda marka suldadii awoodii baabaha ee inuu isaga keliya maaragtay aqoontii gacanta ku hayo fasiraadiina gacanta ku hayay talabaad oo iyadana ay samayso waxay tahay inay soo baxeen madaaris oo maaragtay islaaxi ah oo Martin Luther ninkan dhaho ugu horeeya oo markaas waa abuurmay madhabkii protestantiga ahaa madhabka protestantka oo Martin Luther King oo islaaxi ah ayaa wuxuu ku doodayaa in qofka iyo ilaahay in laga dhex baxo si fiican oo baabaha isaga shaqo ku leeyahay halkaas awoodda baa kaga dhex saaro protestantaha oo ku doodayso manhajka islaaxiga ah iyo madbacaddii ayaa waxay saamaxday in tacaaliintii maaragtay kiniisadda ay dadka wada barteen ay faafto si fiican ta kale muhiimka dhacdana iyada waxay tahay oo markii waxaa la dhaho dhuxusha dhaqaajiso dhuxurta laga dhaliyo maaragtay tareenkii lagu sameeyey halkaas waxaa dhacda marka in la isku gooshi kara marka Paris ilaa London in la isku gooshi karo ee dadku isku socon karaan afkaarta isdhexmari karto halkaas marka waxaa ka dhalatay waxaa la dhaho surcada ama degdeg in ay afkaartii maaragtay ay ku gudubto si fiican marka madbacaddii iyo dhuxushii tamarta laga dhalinayay ayaa waxay abuurtay marka in aragtiyihii qarsoonaa nimankii soo bixi doono iyagana marka dambe la dhihi doono waa tanwiir ama enlightenment la dhihi doono oo tarjumaadka Soomaaliga weli ma saldhiganin dad baa iftiinku doodada waxay ku doodaan maaragtay inuu yahay maan ay sheeg
ereyada badan ee inkastoo dib maanka laga curiyo ereyadaas ismilihii way buuxinayaan labada iftiinka ama enlightenmentiga falsafada enlightenmentiga oo aan u imaan doono ayaa iyadana waxay caawiyay labadaas dhacdo ayaa caawisay inay faafto madbacad baa la helay la abuuray aqoontaa faaftay dhuxushaa laga shaqaysiiyey socodkii afkaartii dadku socodkii ayaa kordhay labadaas markaa waxay culays ku noqdeen ama challenge ku sameeyeen fikirkii hore ee kaniisada jiray marka labadaas waxay marka ay xambaareen in ay afkaartii nimankii la dhihi jiray falsafadii oo rationalityga ama caqlaaniyadda ay faafto caqlaaniyaddu waxay ku taagan tahay oo ay hoggaan u yihiin nimankii maaragtay Descartes iyo ninkii kale maaragtay Voltaire oo labada Faransiis ahaayeen ayaa asaas u ah Descartes iyo Voltaire falsafadooda ayaa waxay tahay in caqliga uu yahay masterka keliya maaragtay ee macluumada lagu helo uu qofkan xaq u leeyahay inuu isticmaalo maskaxdiisa adeegsiga maanka marka ayaa wuxuu qofkan xor u yahay in uu ku diido ama uu ku rumaysto tacaliintii maaragtay kaniisadda ta kalena marka waxaa cusboonaaday oo aada loo cusboonaysiiyey oo weliba Descartes uu ka shaqeynaya waxay tahay in qofkan loo fasaxo waxaa la dhaho xoriyat tafkiir xor uu u yahay qofkan inuu fikiro fikirkaas xorta ah iyo manhajka falsafiga ah ee caqliga ku dhisan ayaa wuxuu halis gelinayaa uu doodana ku furayaa maaragtay jiritaankii kaniisadda si fiican oo marka laga soo tago suldadeeda siyaasadda suldada falsafiga ee ku dhisan tahay waxaa kow ka ah suldada baabaha ee awoodda uu ka helayo maaragtay ilaahay qofka markii ay la furo mashruucan rationality la furo maxaa cadeynaya marka inuu baabaha inuu ilaahay si toos ula xiriiro su-aashaas kaniisadda marka waxay ku noqonaysaa in ay la challenge garayo isla markaas Descartes iyo Voltaire waxaa xoojiyey isagana 1620 la daabacay buuggii la dhahay The New Organon oo Francis Bacon uu qoray oo isagana wax weyn ka bedelay oo aad u critical gareeyay aad u naqdiyay anahe logicii maaragtay Aristotle ee la dhahayay formal logic ama logican suuradda ah oo waxyaabaha wax walba lagu gartaa waxay ka soo horjeedo isma khilaaf laba qado wada socdaan isma jari karaan يعني لوجيك منطقي أرسطو أو له formal logic له بيكون وحود هاي ساس كريمة أنا وحاجة واحد الله informal logic أو دي اللقطة كاللقطة لكن لحظة أما للضوضيو وحنا الله مغالطات يعني أو سجلت كي ما إسبورنتا إيو قف كان موضوع إنه كاس عرو كله ama mawduucyo aan isleeyahay isku rakibo ama waxaan iska dhalanay iska ratibo biko marka soo biiri doodaas ayadana marka looga faa'iideysan doono teknolojiyada si fiican haddii aan hore usii socono intaas waxaan maraynaa curashadii xadaasadii falsafiga maraynaa waxaa soo cusboonaaday madhab la dhaho humanism madhabka humanismka oo xadaasada saldhigu ah wuxuu ku doodayaa cagsiga doodii Christianity-ga dooda Christianity waxay tahay insaanku wuxuu ka dhashay khatiicadii nebi aadam waana dambiile oo mar walba u baahan in la ilaaliyo la dabagalo lana nadiifiyo oo suldada baabahana asaaskeedu ah inuu mar walba qofkan laga warhayo dambi dhaafna uu iibsado madhabka insaaniga ah ama humanismka ah wuxuu ku doodayaa insaanka qiimaha kama helo ma aragtay diin
kama helana ma aragtay qowmiyad ee sidiisu ayuu qiimo u leeyahay saa daraadeed insaanku isagaa wuxuu u yahay adduunka center u ah isaga xarunta ah wax walbana marka waa in ay isaga u adeegaan ay diinta xataa ay ka mid tahay halkaas marka waxaa dhacday insaanka in laga soo dhaqaajiyo dambiile oo ma aragtay oo ku dhashayba khata iyo nebi aadan oo mar walba u baahan in dambi dhaaf iibsado ma aragtay mar walbana ma aragtay la hago iyo inuu noqdo hal mar inuu noqdo ma aragtay isaga xaruntii iyo centerkii inuu noqdo wax walba u adeegayeen ama ahmiyaddu isagu iska keeneen labadaas madhab caqlaaniyadda iyo insaaniyadda waa falsafad ahaan waa bilowgii xadaasada si fiican dhinaca kale waxaa jira haddaan boodno laba dhacdo eedana oo sayniska iyo fikirka sayniska si fiican intayna sayniska u gelin waa bunaynaysaa mise biyaha ku shuba aniga laftarkayga baahanaya dhegeysto marka xumaay ciyaartana dhegeysanaysaa oo idii shubi lahayno inaan soo gaarsiinayno ku soco marka afartii rukun curashada xadaasada rukun labaad marayna waa cilmi labaad sayniska cilmi oo sayniska teknolojiyadda soo socota laba dhacdo isagana waxay baa tiri kaniisaddu waxay aaminsaneed dhulka inuu yahay centerka ma aragtay adduunka ama waxaan loo koonka inuu center u yahay oo nadaliyad cilmi oo adeegsan jira laho aragtidii Ptolemy's theory Ptolemy's ayaa keenay aragtidaas marka nin waxaa soo baxay la dhaho Copernicus si fiican Copernicus ayaa wuxuu keenay maya dhulka ma ahane qoraxda ayaa waxay tahay xarunta ma aragtay koonka oo gebi isla soo wada maraan dhacdadaasi ayaa waxay aad u gelgishay doodii kaniisadda ee sayniska markaan dhehayna way gelgishay macnaheedu waxay tahay doodaha kaniisaddu aragtiyo keliya ma ahane ee way diimaysan yihiin oo kitaabka muqadaskay ku qoran yihiin marka haddii aragtidaas la buriyo waxaa dhaawac weyn loo geystay sharciyaddii ma aragtay diinta doodii hadday jabto ciddii dooda matalaysa ayuu dhaawacu gaaraya si fiican saa daraadeed marka kuma dhiiranin Copernicus waxaa ka daba qaaday oo dabcan inuu ku dhiirado Galileo Galileo dhibaato badan oo maray adiga kadib wuxuu ka noqday waana ma aragtay us dhiibay si fiican marka taas waxay qodobka koobaad iska bedelay ama dooda ku timiday aragtidii sayniska la xiriiray ee kaniisaddu ay qabtay oo ah inuu dhulku maaha xarunta adduunka waa qoraxda labaad uga socno arinta kale ayadana oo sayniska ahoo isbedelka weynku ku dhacay waa isku tagga xisaabta mathematicska iyo sayniska si fiican halkaas ay ka dhalan doonto waxaana dhaho physics-ka si fiican Isxaaq Newton waa marka Isxaaq Newton wuxuu dhabarka ka jebiyey manhajkii ogaalka kaliya ku dhisnaa ee maskaxeed ee kaniisadda si fiican wuxuu xaqiijiyey Isxaaq Newton in aqoontu iyo cilmiga lagu heli karo markii la maro manhajkan la dhaho empiricism-ka ama manhajka tajribada wixii la jaribo oo uu soo saaray maaragtay ii sheeg awoodda oo maaragtay gravity-ga iyo buuggiisii maaragtay marka taas marka waxay keentay in ayagan ay isticmaalaan inta buugga ka soo hadalay Francis Bacon oo the new organon ayaa wuxuu sababay in revolution sayniska uu ka dhaco oo kaniisaddii marka laga hoos baxo ta saddexaad oo kale marka hadda u gudbo sayniska marka laga soo tago ku fikirayno ama maxaan ku radaa ka hadalnay oo afartii qodob ee uu gogol xaaday in curato xadaasadu qodobka hore falsafadu ahaa
qodobka labaadna wuxuu ahaa cilmiga iyo sayniska iyo technology si gooniya u gudub qodobka sociology-ga bulshada. haddii aan sii socono qodobka kale oo muhiimka waxay tahay waa siyaasadda. siyaasadda ka horreysiinaya bulshada. okay. waxaan kiniisadda ay ka soo baxday dagaal oo muddo socday, dagaalkaasoo maaragtay u dhexeeyey imbraadoriyadii Roomaanka iyo Almaaniyadii hore, oo 80 sano oo socday. heshiiskaasoo la dhaho heshiiskii Westphalia. heshiiska Westphalia marka waxaa ka dhashay waxaan la dhaho qowmiyaadka ay soo baxaan nationalka. qowmiyaadka soo bixitaankooda ayaa wuxuu abuuray marka awoodihii kaniisada inay furfurmaan, oo iyadoo Catholic la yahay laakiin qowmiyadihii ay sii kala galayaan wadamo kale, iyadoo Protestant la yahay la kala galayo maaragtay iyadoo Orthodox la yahay haddana laakiin qowmiyaad kale laga tirsan yahay. taa marka waxay keentay marka in oo laga furfurmo. heshiiskii Westphalia ayaa asaas u ah marka oo soo bixitaankii maaragtay dowladda qowmiga ahayd. arrinta kale muhiimka waxay tahay halkaas wax ka soo dhaxbaxay Machiavelli. waa xilliga ay curanaysa dowladda xadiiska ah. Machiavelli ka soo baxay oo la dhihi karo waa aabaha aasaasay maaragtay culumta siyaasiga maaragtay modernity-ga ah iyo waxaan la dhaho markii dambe sii socon doonta secularka. in dowladihii qowmi noqdeen, imbraadoriyadihii maaragtay ay gacmahooda ka baxeen, kiniisadii ay boqorro noqdeen. ha ugu xoog badnaado Napoleon Bonaparte. taas marka waxay keentay in oo kiniisadii gacanteeda kasii baxdo wixii siyaasadda la xiriirta. xadaasada siyaasadda marka maxay ku dhisan tahay? xadaasada siyaasadda waxay ku dhisan tahay doodan la dhaho human nature. qofka bini aadanka ah ama bulshooyinku ma khayr baa mise waa shar? qofka dabcigiisu dabiicada dadka dabiicadiisu ma shar baa mise waa khayr? waa mid sharku asal yahay. falaasifada marka doodaas galay ayaa laba u kala jabay. qaar ay leeyihiin insaanku waa shar, dabiicadiisu waa shar, haddaanan maaragtay la xakameynina wuxuu goosanaya adiga. marka sultada siyaasiga ah waa in ay xakameysaa dadkaas, ama ha cabsiiso ama ha ku maaragtay maareyso farsamo kale. shaqada nidaamka siyaasiga waa inuu noqdo inuu sharkaasi maamulo. kuwa sida kale u dhigana kuwa kale waxay leeyihiin maya, dabiicada insaanku waa khayr, laakiin qofka mararka qaarkooda duruufaha iyo waxay ka dhigi karaan qof xun. marka waxay leeyihiin xumaanta iyo ficnaantu waxaa ka muhiimsan duruufta. qofka duruufta ay samaynayso. labadaas aragtiyo ayaa waxaa ka kala dhashay inta badan aragtiyaha oo siyaasadeed kow ka tahay waxaan la dhaho heshiis bulsho. dadkan aan fiicnayn ama fiican muhiimaddu waxaa iman wax isku haya in la heeyo. waa inay meel iskugu imaadaan ay ka tanaasulaan awoodahoodii iyo xorriyadooda ka tanaasulaan ee xaggaas lagu sameeyo dowladda lagu sameeyo. waa aragtidii khayrka. aragti kale ayadana waxaa jira uu ka soo baxdo la dhaho aragtidii Montesquieu oo in la kala qaado awoodaha. waxaan Montesquieu waxay ka duuleysaa dadkan in ay maaragtay si khaldan u isticmaalayaan awoodda. si loo kala ilaaliyo marka waa in la kala saaro awoodaha. tan ay ka dhalatay saddexda laamood dowladda la kala saaraya. saadalaada marka Rousseau iyo Montesquieu kala saaridda awoodda iyo heshiiska bulsho ayaa center waxay u tahay waxaan la dhaho
political modernity. xadaashada siyaasadeed. marka political modernity-ga ay qaabkaas gudahaas waxaa jiro aragti oo ayadana xagga ka imaanayso theology-ga ama laahuudkii kiniisadda ka imaanaya waxay kasoo haray dowladdu haddii ay la wareegtay awooddii waxay u baahan tahay sharciyad oo waxay rabtay ku samayso ee u dhaqaanta sidii ma aragtay oo kiniisadoo kale waxaa jira marka waxaa xoogeystay dooda la dhaho marka sovereignty-ga halkaas waxaa imaanaysa dooda sovereignty dooda sovereignty-ga ayaa waxay tahay dowladdu bisifadeeda shakhsiyadeed in ay xaq u leedahay wax walba oo khatar ku ah jiritaankeeda ya in ay ka hortegi karto wax walbana u isticmaali karto dooda siyaadada waa yani inta ay dhulka ay ka taliso dadka ay u taliso iyadaa u madax bannaan iyada u madax bannaan waxay rabto ku samaynayso hadday khatar dareentana waxay rabto isticmaali karto dowlad ahaan hadday khatar dareento waa sovereignty-ga oo asaas u ah iyadana waxaan la dhaho dowla qowmiya ama nation state marka nation state-kii iyo aragtidii kala saaridda awoodaha iyo heshiiskii bulsho ee waxay abuureen waxaa la dhaho modern state dowladda casriga oo cagaha dhigatay maaragtay qarnigii 19aad marka waxay ku dhisan tahay waa heshiis kaniisadda laga soo dhex baxay heshiis bulsho siyaadada iyo kala saaridda awoodaha waa xagga waxaan filaa inay saldhigatay xadaasada siyaasad ahaan xadaasadu bulsho ahaanna waxay samaysay isbedelo waaweyn waxaan ka soo qaadanaynaa isbedelka ugu weynaa kiniisaddu waxay maamuleysay bulsho dhulgoosisa ah waxaa la dhaho feudalism yani dadkan oo aristocracy-ga ah inay haystaan dhul waaweyn loogu shaqeeyo dadka u shaqeeyana maaragtay cunto iyo maaragtay nolosha ka siiya ayagana ay qaataan dhulkay wax soo saaran ay leeyihiin kiniisadda iyo boqorkana ay maaragtay canshuurta ay qaybsadaan qaabkaas ayaa waxaa ku dhacay u gelgishay oo waxaa ku furmay markii ay la sameeyey saan kuu sheegay madbacaddii iyo tamartii iyo markay xoogeysteen ayaa waxaa soo baxay waxaan la dhaho industry warshaddii ma noqonin in laga guuray dhulkii oo warshado la samaystee waxa isbedelay qaab dhismeedkii bulshada si fiican bulshadii ayaa waxay noqotay 3 dabaqadood waa marka 2 dabaqo kaliya ahaa dabaqadan aristocracy-ga ah oo dhulka haysata iyo dabaqada u shaqeysa ay kaliya marka warshadayntii waxay abuurtay waxa la dhaho marka dabaqa dhexe oo bourgeoisie la dhaho dabaqada bourgeoisie-ga waa dabaqo warshadaynta ka abuurmatay oo magaalada degan oo maamul iyo ma aragtay iyo aqoon iyo ku shaqeyso xirfad iyo aqoon iyo waxaas ku shaqeysa isbedelka noocaas ayaa wuxuu abuuray marka in magaalooyinkii ay ballaartaan dadkii magaalooyinka soo galaan xiriiradii bulshada isbedelaan ma aragtay ay xoogeystaan ma aragtay fikirkii iyo falsafadii ay xoogeysatay yani waayo markii ay bulshada dhaqaalaheeda uu fiicnaaday oo dabaqada dhexe marka shaqada u badan ay qabanayso waxay ahayd inay samayso inay aqoon soo saarto fiican marka xaggaas waxaa soo baxay marka nadariyaadkii bulsho ee ma aragtay waxaa la dhihi jiray ma aragtay Adam Smith oo kasoo baxay halkaas dhaqaalaha oo dhaqaalaha ahaa Karl Marx oo dhaqaalaha ahaa nimankii Ingiriiska ahaa ee eegana ma aragtay socialistiga ahaa ee eegana soo saaray waxaa la dhaho ideal socialism waxaa ku dhacay marka halkaas dabaqadii dhexe weynaat waxay abuurtay dabaqad aqoon fara badan afkaar iyo jaamacadiyaa xoogeystay wax marka waxaa dhashay la dhaho ingiriiska lagu dhaho public spare-ku marku waa jaamacadaha waa maqaayadaha waa iskuulka waa goob walba dadka iskugu imaanayaan ay ka doodayaan danahooda gaarka ama danta guud marka masaaxadda guud ma odhan karnaa saaxadda guud waa suuragal waa public spare waa saaxad yani waa meesha oo dadka wada dhexeyso saaxadda looga hadlo arrimahaas marka
bulshadii industrializationka ku dhacay warshadoodii laba arrinaa marka aan noqotay kow waxaa noqday in wax soo saarkii uu kabcay haddii oo maaragtay markii hore oo feudalismka ama systemkii maaragtay ka horeeya brid industriga ahaa uu soo saari jiray maaragtay tiro oo waxaa dhacda tiro laba laab ama tiro saddex laab inay soo saarto wax soo saarkii kabcay waxaa loo baahnaaday marka shaqaale badan waa isbedelka labaad shaqaale badanaa loo baahnaaday waxaa loo baahnaaday beerihii in laga soo qaado la warshadeeyo xirfadaa loo baahnaaday xaggaas marka waxaa kobcay baahida shaqaalaha loo qabo iyo baahida xirfadda loo qabo labadaas marwada kobcay ayaa labadaas kobcay oo marka ay soo baxayaan marka culumtan maaragtay oo managementiga iyo maaragtay iyo businesska iyo culumta ay ka soo baxayaan waxaana xoogeystanay isla markaasna waxaan la dhaho slaveska adoonsiga in shaqaalo badan oo xoog loo baahnaado in lasoo adoonsado weliba yani dowladahaas oo maaragtay u baahnaaday in shaqaalo badan la geliyo oo dhuxusha soo guraan maaragtay iyo beerahana ka shaqeeyaan slavekana wuu xoogeystay isku soo koob qarnigii 18aad iyo qarnigii 19aad ayay ahayd industriga awoodiisa laakiin aragtiyadaha oo la dhaho nadariyaadka cilmiga bulshada ayaa qarnigii 19aad oo 1800 ahaa ilaa qarnigii 20aad waxaa soo baxay aragtiyihii Marcus aragtiyi waxaa soo baxay la dhaho maaragtay daraasaysa bulshada oo daraasaynaysa qaab dhismeedkeeda oo la dhaho structuralism halkaas marka waxaa kobcay cilmigaa kobcay wax soo saarka aragtiyada oo cilmiga bulshada ah ugu dambeynna baahidii loo baahnaaday capitalka iyo xirfadda iyo waxaa la dhaho raw materialka ra'samaalka iyo raw material qayriinka ayaa waxay sababtay iyadana in ay isticmaalka ama gumaysiga oo curto oo lagu duulo maaragtay dadyo kale si raw material looga soo qaato waxaan leeyahay afarta hadda aan soo sheegnay dhowr 500 oo sano inaa isku dayna bal inaa ma aragtay si loo taariikheeyo saacad kusoo koobno wallaahi shaqo culus weeye waxaa curashadii falsafadeed iyo curashadii dhaqaale iyo bulsheed oo dhaqaalu qayb ka yahay iyo curashadii siyaasadeed iyo curashadii technology science xadaasada ayaan soo qaadan dhignay oo soo kala saartay ka horna xadaasadu maxay tahay intaynaan gelin waxaad ka bilowday xiriirka xadaasada iyo ka dhexeeya reer magaalnimada magaalowga ama maxaan ku idhaahdaa sheeg casriyowga iyo waxyaabaha noocaas waxaan jecelahay inaan qaybta dambe ee barnaamijka xalqadda labaada aan kaga doodno ma bacda alxadaasa ama postmodernismka oo qayb dambe u dhigna laakiin qaybtani waxaan rabay inaan kusoo xidho su-aal ah 500 sano ee falsafad iyo bulsho iyo maxaan ku dhahaa siyaasad iyo science cilmi iyo maxaan ku technology leh yani dhacdooyinkoodii ugu waaweynaa isbedeladii ugu waaweynaa aad noo qaada dhigtay waxaa kusoo gabagaboodeen ama dhinac ka mida yani tigii ka dhashay ee tooska ahaa gumaysiga saad sheegtay oo maxaan ku dhahdaa shaacsano kale oo goonidiisa loo darso laakiin xaaladaasi ay dhashay ahayd in yar waqti yar oo kooban inta ka hadha xalqadan oo daqiiqada ah ma ku soo koobi kartaa sida xiriir u leeyihiin xadaasada iyo gumaysiga ama slaveryga yani gumaysiga labadiisa dhinacba adoonsiga iyo dhulka la qabsado dadka lagu maamusho gumaysiga wuxuu xoogeystay qarnigii 19 dhamaadkiisa oo waxaan la dhaho shirkii Berlin 1800 inuu ahaa dhamaadkiisa weliba marka Yurub laba arin ayaa keentay in ay maaragtay ay ku duulaan dadyo kale arin waa maxay salka ku haysaa dhaqaalaha oo baahidii loo baahnaado qayriinka iyo loo baahnaado maaragtay raasamaal la geliyo maaragtay warshadihii way keentay midna
waa waxaan la dhaho daakiradii christianitygii ay ahayd in dhulkan oo maaragtay easternka ah dhulka sharqiga ah uu yahay dhul barakaysan oo maaragtay in ay maaragtay aadaan oo dadkaas la geeyo ilbaxnimada ka maqan waa dhul barakaysan waa dhul maaragtay christianity ay ka bilaabatay oo weliba maaragtay sham iyo dhulkan asiada laakiin waa dad aan ilbaxnimada gaarin saa daraaddeed waa in la gaarsiiyaa ilbaxnimadaas taas waxaa ku doodaya Hegel oo aaminsan waxaa la dhaho dialectiga maaragtay sayidka iyo adoonka oo aaminsan dadka madowga ah iyo dadka Asiaanka ah inaysan oo ilbaxnimada aysan gaarin oo dad ah in la ilbaxiyaa tahay marka sidaad u fiirisid dadkan waa in xoolahooda la qaato ayagana ay noqdaan ayagana wax loo geeyo khibrada loo geeyo waa qaabka uu maaragtay aragti ahaan uu gumaysiga uu ku bilaabmay marka waana uu markii dambena ka dhalan doonto waxaa loo nadariyada taxdiis dadkan waa inay la xadaasiyey sida u noqdaan bulsho la jaan qaadi karta bulshadii gumaysatay oo jaamacadahooda iyo iskooladooda iyo maaragtay iyo muasasaadkooda ka shaqeyn kara isticmaalka marka xaqiiqatan waxaa la dhahaa waa nataa'ijtii ka soo baxday xadaasada si fiican oo ay noqotayna waxyaabaha maaragtay ay la dhihi karo dhabarjab ku noqday erayadii waaweynaaye la isticmaalaya ah insaanka inuu xor yahay iyo insaanka inuu yahay asalka ama uu yahay sandarka dhehe ay tahay marka gumaysigaa wuxuu ku noqda marka shaabad dhabarka looga dhajiyey xadaasada waxaan sii raacay waxyaabaha maaragtay dilkii iyo dagaaladii labaadee adduunkii kii koowaad iyo intii ku dhimatay iyo gumaysigii waxyaabahaas markii la isku daro waa waxyaabaha la dhaho waa negative result nataa'ij xun inay ka soo baxeen xadaasadii waa wardhawaya dooda ama yani masalada xadaasada iyo sharaxeega iyo faahfaahinteeda oo kooban ballaaranna oo sida cumar sheegay 500 sano wax ka badan koobaysa iyo dhinacyo kala duwan oo fikir iyo falsafad leh bulsho iyo dhaqaale leh siyaasad leh science iyo technology leh waxaan ku soo koobaynaa intaasi oo saacad ku dhow halkaasi intaynaan u gudbin qaybta dambe oo maxaan ku rahdaan aan ballan qaadnay inaan kaga hadalno mawduucaas kale waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo maanta dhan waxaynu soo sharaxnay xadaasada iyo waxay tahay isoo curatay qofka bini'aadanka xadaasiga ama xadaasiisan sideen u garan karnaa iyo kan xadaasiisnaynba haddaan si degdeg u soo koobno qofkan qof oo modernity nool ama xadaasada dhex dabaallanayo iyo qof aan dhex dabaalanaynin waxyaabaha lagu kala garto kow waxaa ka aragtida qofka xadaasiga ah wuxuu aaminsan yahay wax walboo lasoo dhaafo in loo jaro xiriirka sooyaalka xiriirka loo jaro oo loo baahan yahay in loo noolaado qaab 100% ka duwan sidii loo noolaan jiray si fiican bulshaduna ay sameyso waxaan la dhaho transformation isbedel ay noqoto bulsho xiriiraadka nasab iyo xiriiraadka maaragtay loo yaqaano internationalka oo qadiimka loo gudbo xiriiryo cusub aragtidaas qofka aaminsan inta badan waa hal qof oo xadaasi ah talabaad oo muhiimka waxay tahay qofka xaaladda oo iibsiga iyo moodada ku nool marka qofkan haddii uu maaragtay yahay qof oo modelka baabuurta modelka mobilada modelka dharka markada maaragtay xiiseeya oo ii sheegeen sidoo la jireen wixii cusub caalamka jecel marka waa xaalad xadaasi waxaa xaalad xadaasi ii sheeg maqaaxiyooyinka kafeega keliya
waa xaalad xadaasi ah oo waayo waxaa la oran jiray maqaayadda wax laga cuno oo weliba dee daruuri loo aado ama dadka oo musaafiriinta wax ka cunaan cuntada laga maarmi waayo loo aado dadka musaafiriinta laga cunaa ama xaalad laakiin xadaasada waxay keentay inay ay maqaaxiyooyinka inay kala baxaan mid oo kafee iyo wixii la halmaalay lagu cabo midna wax laga cuno inta badan ba la fadhiyo waa xaalad si kale aan u dhigno cuntadii marka hore ahayd asalkeedu bilaash ahaato oo qof xaafadaha lagu samaysto oo qofka lagu barti qaado oo qof ku qasban mooyaane qof kale aan u iibsan ayaan marka xadaasada la gala caadi noqonaysa inay product noqoto saad sheegaysana si kala baxdo oo qaybo kala yeelato oo cuntooyinka xataa noocyo kala yeelato oosan la aqoonin marka xaaladaas waa xaalad xadaasi ah dadka ku dhex jira dadka maaragtay clinic-ga u ah iyo kulligood waa dad xaalad xadaasada nool taas waa mid waxaa kaloo xaalad xadaasada ah waxaa la dhaho modern state-ka ama dowladda casriga ah oo in maaragtay baarlamaan sharci dejiye madaxweyne oo sharci oo maaragtay iyo dastuur iyo in la yeesho iyo qaabkaas in loo dhisnaado dowlad xuduud leedahay dadka marka xaaladaas ku nool waa dad dhihi kara xadaasad waa dad xadaasada ku dhex nool intaas wixii ka baxsan marka qof aan xuduudihii maaragtay aan maaragtay ku dhex nooleen xuduudahaas ku dhex jeexo maaragtay aan danka lahayn qof maaragtay aaminsan in oo traditionalku asal yahay in lagu noqdo ay tahay dadkaas waa dad aan weli maaragtay xaaladda xadaasada aan ku nooleen si fiican marka waxaan jeclahay inaan kusoo gabagabeyno xalqada koobaad ama qaybta koobaad ee barnaamijkan xadaasada oo ah fadhigii afraad ee silsiladda Cambaabur podcast oo idinkaga timaada Affiliates Foundation maanta waxaynu daadihinay ama inoo wareysanay Cumar Cali Baasha anigoo ah Cabdillaahi Raage fadhiga ku xiga iyo mowduuca qaybtiisa kale ayaynu iskugu iman doonaa nasasho wanaagsan saaxiibayaal